وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقة ورابشو su-aashii labaad ee maadada siirada su-aashii koowaad ee wiilasha xaggooda aada waxayna u dhaceysay sida tan sheeg nasabka nabiga sala allahu calayhi wasalam dhanka aabaha waxayna uga jawaabeen si sax ah aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa akademiyadda gabdhaha iyo wiilasha saaka 2 saac iyo saacaddan inta ka dhaxle u taagnaay qaabkii ay u diyaari lahaayeen imtixaankan iyo tartankan adag waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo macallimiinta ay ugu horeyso maamacaasho oo iyaguna dadaalka dheeraadka iyo juhdiga bixiyay oo inta yarta 4 saacadood ama 3 saacadood anaga aan la joogno ayaan dul qaadan lahaynay iyagu intaas taagnay waxaan kaloo rabaa mar kale inaan u mahad celiyo hooyooyinkii galabta 10 saac meeshan soo fariistay wiilina nala jooga waxa oo juhdiga badan bixiyay ayagoo waliba guryihii taleefano looga soo diray haddana u adkaysto dulqaadka badan muujiyay sidii ay u ogaan lahaayeen natiijada ilmahan iyo meesha waxa ay ku hayaan iyo ardaydan waxa la baro iyo inay dhiiri geliyaan ardaydii saakay 2 saac u istaagay inay tartankan ay kamera dhaliyaan waxa meesha ka muuqata in anaga hadaan nahay aabayaasha nalaka dulqaad badan yahay maxaa yeelay wax ka yar 10 nin ayaan ku nimid haddana waxaan ku joognaa aniga iyo Sharmaake iyo 2 nin oo kale ama nin kale marka waa nalaka dulqaad badan yahay tiirarkii ayaa tiin waa idin kaga mahad celinaynaa sidaad u dulqaadateen oo samarka badan aan u muujiseen aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxa ma quruxda badan meesha lagu soo bandhigay cid gooni looga guuleystay ma jirto gabdhahana way guuleysteen wiilashana way guuleysteen annagana waan guuleysanay akademiyaduna way guuleysatay bismillaah awalan ilaahay baa mahad iskale nagu soo kulmiyay xafladan qiimaha badan aanu ilaa galabta ilaa caawa goobjooga u nahay runtii akademiyadan amaal aniga dabcan wiil iyo gabar baa ii dhigta waqti dhowna ku soo biiray sababtaan u keenana waxay ahayd markaan xog badan ka helay halkan iyo waxa lagu baranayo iyo ilmaha sida akhlaaqdooda loo dhisay waxbarashadooda ayaan go'aan waxaan ku gaaray in ilmaha iga keeno aniga oo Shukri Xaaji Maxamed Doore waxaan ka mid ahay waalidiinta ay dhigtaan ilmaheeda meesha 2 wiil ayaa ay dhigata tartankoodana waa wanaagsan yahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa inay horumar midkaas ka wanaagsan gaaraan waalidiintuna ay kula dadaalaan sidoo kale ilmahooda waxbarashadaas wanaagsan iyo diinta islaamka oo aad loogu tarbiyay intaas ayaan uga baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka mid ahay waalidiinta meeshan ilmaha u dhigtaan aad ayaan ugu faraxsanahay maanta qaabka ilmaha wax soo jeedinayaan waalid walba meeshan joogana wuxuu indhihiisu ku arko caaw ku jiifaa kaliya waxaan dhihi lahaa hal kelmo bis aan ku darsan lahaa waalidiinta ilmaha guriga kula soo dadaalaan inta sameey karaan oo garaankooda والطين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين دماستر الأنبياء إخوة دمان والدينتي سو حاضرت هلكان bahda caafimaadka bahda degmada waalidiinta hooyooyin iyo aabayaal iskugu jiro
ardayda qaaliga wiilal iyo gabdho iskugu jiro dhammaantiin waxaan leeyahay mar kale ku soo dhawaada xarunta Amal Academy runtii xarunta Amal Academy ma ahana umaleena markii ugu horeyso idinku soo dhaweynayo dhammaantiin ama badankiin waxaa tihiin hooyooyinka ama waalidiinta xanaanada mar walba na garab taagan la'aantoodana aysan sii soconayn xanaanadan intaas kadib hadal badan ma sii galayo maanta waxaa u fadhinaa tartankii finaliga ahaa ama ugu dambeeyay ee sanadkan maadaama tartamo hore loo soo qabtay ardayda gabdhaha iyo wiilasha ay tartami jireen labada group marka maanta si rasmi ah ay iskugu dhici doonaan waxayna heli doonaan natiijada hortiina ay ka helaan qolo walba qoladii baastana labada group walba waxa wada macluumaad gaar ah qoladii baasta haduu ilaahay idmo ayagii macluumadooda waxay leeyihiin waxay leeyihiin abaalmarin qoladii dhacdana waxaa leeyahay doona soo adkeeya haduu ilaahay idmo insha Allah waxaan rajeynayaa marka tartankaas inaa meesha si fiican wacdaradaas meesha ka socoto si fiican u fiirsataan waqtiga inuu ugu yaraado laga yaabaa laakiin waalidiinta markale waxaa ka codsanaynaa maadaama ciyaal yar aad u daayareeyeen inaan la niyad jabinin oo laga dhaqaaqin ilaa tartanka waqtigiisa uu dhamaado haduu ilaahay insha Allah waa idinku adkeenaynaa sababtoo ah dad waaweyn niyadda isku dhisi karaan Soomaa waxay dhigi karaa idinka tartanka awal bay idinku idin socod iska wata laakiin ilmo yar waxa laga yaabaa dadkii daawanaya haday waayaan dhiirigelintii markay waayaan inay xogaa yar niyad jabaan laga yaabaa marka waxaan rajeynayaa inaa dhammaan si wanaagsan aan u dhiirigelin doono waalid walbana uu ku fakari doono inuu noqdo dhiirigeliyaha ugu horeeya ardayda